الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون وبديان kuwii alaabta yaraayo kuwa waxba ku rarayn ee caddaynsimaha ahaabaa badiyey. qofkaan alaab wadanin ee keligiisa mujarad ah kaasaa mufarid layla iyo neefka caddaynsimaha wax ku rarayn iyo qaaluu markaas yidhi wama almufariduuna yaa rasuula allah mufaridiintaasu maxay yihiin mufaridiinta aad sheegaysaayo maxay yihiin bay yidhaaheen. yaa rasuul allah qaala markaasuu yidhi adaakiruuna allaha kahiira wadaakiraat waa kuwa dikriga alla badiya dikriga alla xusiyo iyo raggi iyo kuwa haweenkaa weeyaan. ruwiya almufariduuna bitashdiid الraa wa takfiif almufriduun labadaba waa la wariyey. wاlmashhuur aladii qaalahu jumhuur الtashdiid sida mashhuurta ay wariyeen waxa ay yidhaahaan ay wariyeen waa in la shado mufariduun la yidhaaho. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وأنا سيدا يقول حديث حسن وهي حسنه في صحيح الجامع الصغير ذكر وحا فضل بدن لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. islaamnimada sharaaicdeeda yani axkaamteedii iyo dikriyaalkeedii iyo way igu fara badantaye wax aan qabsada ii sheeg shay keliya aan qabsadan ku dhagay iiga sheeg way u kala baahday. qaala markaasuu yihi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illah carabkaagu waa inuun ka zuulin mid dikriga alle ku qoyan dikri alla oon carabka ku hay kaa doonta marka adu ka dhigo kaasaa wax walbaba marka ku jamcinaya. hal shay oo keliya haddaad rabto ood qabsato oo sharaa'ic alislaam oo dhan kuu soo kooba dikriga alla waa inaad badiso dikriga allana adu noocaa doonaysa ka dhigo carabka aana isku qabanin oo qafle iyo bilaash iyo sheeka bilaash iyo xaasuun ay isku shuglin. rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan xadiidkuna صaxiix weeyaan صaxaxahu fi صaxiix الjaamiع الصaغيir wاlkalimi الطayib.